u adeegso codkaaga wanaagga, dhagahaagana inay khayrka maqlaan, gacmahaagana bixinta sadaqada, maskaxdaadana runta, jidhkaaga oo dhan alla ka cabsiga iyo toosnida dariiqa saxda ah. Ka dheerow saaxiibtinimada dadka, mar kasta kula falanqeeya dadka kale ceebahooda. Noloshu waxa ay ku baraysaa inaad u baahan tahay in aad go'aan qaadato wakhtiga ku habboon. Ma aha goor hore, mana aha goor dambe. Nolosha mu'minku sahal ma noqoto imtixaan la'aan, imtixaankuna ma fududaado samir la'aan, samirkuna kaamil ma noqdo qanaaco la'aan, qanaacaduna ma dhammaystirnaato ilaa kalsoonida la helo. Intaas waa waddada keliya ee aad uga guulaysan karto safarka nolosha. Nin xaakin ah ayaa la weydiiyey, maxaa ugu qurux badan wixii aad aragtay? Waxa uu ku jawaabay, ma arag wax ka qurux badan qof arkaya dhammaan ceebahayga oo haddana weli i jecel, iguna kalsoon. Haweenaydii la odhan jiray Margaret Thatcher oo dalka Ingiriiska ra'iisul wasaare ka noqotay, saxaafadduna ay ugu yeedhi jirtay haweenaydii birta ahayd, ayaa laga hayaa sidan: haddii aad doonayso maxaa la yidhi, ragga warayso; haddiise aad doonayso maxaa la qabtay, dumarka weydii. Hawlaha la qabto waxaa ugu qurxoon fulinta waxa Eebba ku faray, ka dheeraanshiyaha waxa uu Eebbe kaa reebay, iyo ku kalsoonaanta waxa Eebbe agtiisa ahaaday. Ha odhan wakhti igu filan ma haysto, waayo dhammaan dadkii dunidan wax ku soo kordhiyey maalintoodu waxay ahayd 24 saacadood ee kamay badnayn. Adduunkan ma jiro cid hoos u dhigi karta qof go'aansaday inuu sare u kaco, nafta aadanahana silsilada laguma hayn karo. Hadalyaqaan caan ahaa ayaa dhegaystayaal uu madadaalinaya wuxuu yidhi, sannadihii iigu wanaagsanaa noloshayda waxaan ku soo qaatay gacmaha haweenay aan xaaskayga ahayn. Dhegaystayaashii aamus iyo yaab baa ka soo hadhay, qaarkoodna afka ayay gacanta saareen. Wuxuu ku sii daray, haweenaydaas waa hooyaday. Wax ka baro shalay, ku noolow maanta, berrina rajee. Waxa ugu muhiimsan in aanad joojin waa su'aal gelinta. Waxaan akhrinayay fariimihii aan hore isku dhaafsannay, waxaana soo ogaaday inaanad hal mar xataa fariin ii soo dirin, keliya aad ii soo jawaabi jirtay.